muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan kuso badanaya xerooyinka lagu dhaqo geela iyadoo caanaha geela laga isticmaalo gudaha magaalada baladweyn dadka qaar ayaanan ka maarmin caanaha baadiyaha looga keeni jiray maadaama waqti dheer ay soo gali jireen gudaha magaalada baladweyn hadda waxaa la helay hab fudud taa oo ah in la hirgeliyay xerooyin lagu dhaqaaleeyo geela kuwa oo ku dhex yaalo gudaha magaalada baladweyn maraan maanta booqasho ku tagay mid ka mid ah xerooyinka lagu dhaqa geela ku yaala bartamaha magaalada baladweyn waxaan halkaa kula kulmay mid ka mid ah kuwa xanaaneeya geela waxa uuna ka hadlay faa'iidada uu caanaha geela u leeyahay bulshada ku dhaqan magaalada baladweyn iyo deegaanada ku hareeraysan iyo in la furo xerooyin lagu dhaqo geela si ay si fudud dadka ugu helaan caanaha geela iyo qaabka ay u xanaaneeyaan geela xeerad un buu ku wareegay cunugyaha isaga wala kala ilaa xeeray ku jiraan 4 saac oo moorisiin qaabka baadiyaha markii ka hadlana waa soofaan waa dhax socdaan asha waa laga maraa ama saddex laga maraa ama xaq laga maraa habeenkii markii soo xeeradaan un baa laga xeereen tii iir hoos salaxina waa gacanta la geliya la salax dhimma magaalada hadda amaartii asbiil ku bilaash badan yahay oo isku fiican yahay sida badana oo baxtaarkiisa hataa geela nimcadiisa ay ku soo baxaysaa ma sha Allah ka waran marka maxaa qofka marka la lisay habab loogu baahan yahay ma jirto mise qof ma taa lisay kar geel ma qof taa waa lisay kara qofkii lisay sida aqoon waa lisay kara qof aqoonina macnaha oo lismadu gabgabku ahna ma wada lisay kara waxa caarka ma dhabeyn karto Soomaa laakiin qofkii gacniis xoogayno hay'a waa wixii hash ay golato waa kamira waan ka soo kulisa waxaad bulshada ka qabtireen baahiyihii loo qabay caanaha inta badan baadiyaha waa ka soo dah jireen caanaha hadda xilligii rabaan ay bulshada qaadan karaan marka ka warantaas ma sha Allah bulshada hadda waxa waaye boqol aad iyo aad baa loogu meersaday awla soo dah jireen ilmaha shaqara dhiman jirtay hadda subaxnimada inta jeeliheen ba indhaha laga gelina iyagoo kulul oo kala arag haye geelka miiga ma joogo marka noloshiisa kana ka nool waxaan ka fiican oo ka dhaqaalaysan adinka uu jiin waa sawaan u diiday marka geela ma soo lisaanina geel uu diray bal waa xoolaha nibu si u dhaqaalaysto qof uu wana yani wax ma si qofna sidii loo targala usiya anaga hadda waxa way qaabka siniin waa qaab wanaagsan waa qaab istaraatiiji wanaagsan basharax loo haye marka bulshada ayaad caanaha ka iibisaan geela marka qarashka aad gelisaan aad makaalkii aad ku soo gadaan iyo balkii ma soo celisaan marka caanaha aad gadaan ha sida badanaa waa aday waa isbadaya waa soo celinaya dadkana sidii maarti oo qaab wax loo tiri kara oo diibsana oo siina wax ka soo daaho meel dheer laakiin ama loo baawar ama mooto ay keenaysan ma xeerado ku jira qofkii waa u baahnaa buu ngisir ha waa tan dhag iyadoo kula dhahligina yaa ko maqlabo ma sha Allah نشقدنا نصحد صدق تو ونكسب والله فادي سكر ibraahim maxamed xasan ibraahim jamuuni janaalka wariye jamuuni magaalada baladweyn ee magaalada madaxda gobolka Hiiraan